waa galabnimo Arbacaa taariikhduna ku beegan tahay 3 bisha Febraayo sanada 2021 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media General Yusuf Maxamed Siyaad Indhacde oo wareysi idaacada kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay cidii ka dambeysay dilkii General Maxamed Nuur Galaal oo ku dhintay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho 31 bishii Janaayo. General Yusuf Maxamed Siyaad Indhacde ayaa su'aalo badan ka keenay qaabkay wax ugu dhaceen hoteelka Afrika wixii lagu arkay meedkii General Galaal iyo waxa uu ka aaminsan yahay cidda geysatay dilka generaalka oo qolkiisa kamid ah hoteelka Afrika loogu tagay meedkiisa. Waxa uu sheegay in generaalka ay dishay hal xabad oo qadaadka dhinaca dambe ee qoorta loogu dhuftay taasina ay suurtagal ahayn qof dagaalamaya in gadaal laga toogtay. wuxuuna intaasi ku daray arrimo shaki badan ku abuuray oo ah xaaladii looga tagay qolka generaalka. Generaalka wuxuu ku sugnaa barandada qolkiisa. Barandada waxa looga tagay oo yaali meedka General Galaal waxaana kor saarnaa nin shabaab oo bam F1 awatay. Waxa kaloo meel hal mitir u jirta yaalay nin kale oo meed Al-Shabaab ah. waxaan aaminsanaa inuusan ninkaasi meesha ku dhiman ee la keenay meedkiisa ayuu yiri General Indhacde oo wareysi idaacada kulmiye ee magaalada Muqdisho. wuxuu sheegay in dilka General Galaal uu ku tuhmayo ciidamada dawladda taasina uu ku cadeynaya laba sabab. jananka iyo ninka shabaabka ah ee watay bambada qol 2 mitir ah ayay ku wada jireen. waxa isweydiin leh sidee dad dagaalamaya hal qol ugu wada dhinteen ayuu yiri General Indhacde. General Indhacde ayaa sheegay in sariirta ninka meedka ah ee Al-Shabaab la soo dhigay lagu arkay faradhiig leh oo cuskaday kuna sawirmay sariirta. wuxuuna ku dooday in labada nin ee meedka shabaab loo soo qaaday meesha oo la geeyo oo ah qolka General Galaal. wuxuu qirtay in maleeshiyaadka Al-Shabaab markii ay galeen hoteelka ay toos u abaareen qolka uu deganaa General Galaal halkaasna uu ku dhexmaray dagaal. wuxuuna intaasi ku daray in General Galaal uu diyaarsanaa kuna huwaysnaa qori AK-47 iyo bambooyin uuna aaminsan yahay in raggaasi shabaab uu isaga dilay sida uu yiri. isagoo ka hadlayay dagaalkii ay ciidamada dawladda ku galeen hoteelka ayuu cadeeyay in muddo markii wax rasaas ah aysan dhicin mar kaliya xabado la maqlay kadibna ciidamadu ay sheegeen in qofkii u dambeeyay la dilay oo lagu yaacay hoteelka. wuxuu General Yusuf Siyaad Indhacde shaki ka muujiyay in qorigii generaalka la qaatay iyo in hoteelka oo dhan ciidamada ay xaalufiyeen wixii qaadmi kari oo dhan ay qaateen ayna wax lala yaabo ahayd in kaamirooyinkii ku xirnaa hoteelka la burburiyay oo waxba aan laga tegin. ma dhahayo madaxda dawladda ayaa amartay in la dilo General Galaal laakiin waxaan dalbanayaa in baaritaan lagu sameeyo sidii ay wax u dhaceen ayuu yiri General Yusuf Maxamed Siyaad Indhacde. shirkii dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee arrimaha doorashooyinka 2020-2021 ayaa maanta Arbacaa ka bilowday caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. wadahadallada ayaa qorshuhu ah inay furmaan 1 Febraayo balse waxaa ku yimid dib u dhac balaaran ma cadda sababta keentay baaqashada balse waxaa loo aaneynayaa jadwalka. madaxda ka qaybgalaysa shirka ayaa kala madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Roble, madaxweynayaasha maamulada Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. shirkan ayaa furmaya ayadoo weli ay taagan yihiin caqabadihii la isku hayay weli. waxaa sii dheer gudoomiyaha gobolka Banaadir oo u jooga goobta in 13 xubnood lagu daro xildhibaanada aqalka sare halka madaxweyne Farmaajo uu qorsheenayo in uu 13 kursi ka dhigto gorgortan siyaasadeed si loogu dhaafo arrinta gobolka Gedo. sida caadada ahayd madaxdu ku shiraysa halkaas ayaan waxaan wehelinin qofna sida kulamadii hore ee Soomaaliya lagu yaqaanay taas oo la macnaa inay albaabadu u xiran yihiin xog helidan ay adkaanayso. haddii ajandaha lagu soo daro kuraasta 13 gobolka Banaadir waxa huwaalaha in shirku noqon doono mid lagu kala tagay walow qorshaha Farmaajo uu ka leeyahay 13 kursi gobolka Banaadir ay tahay inuu ku bedeshay in loo daayo Gedo isna uu muujiyay inuu ka tanaasulay 13 kursi ee Banaadir sida ila wareejo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ay u xaqiijiyeen bahda warbaahinta. afayeenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa eedayn kala duldhacay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdi Xaanshe Cabdullaahi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay inuusan aqoonsanayn federaalka Somaliland iyo golaha sanadka. madaxweyne Farmaajo ma aqoonsana federaalka aqalka sare iyo inay Somaliland ka maqan tahay. ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaan u sheegayaa arrinta halka ay ka qoransan tahay halkaas weeye. dhanka kale siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay inaan loo dhameen wadahadallada ka furmay magaalada Dhuusamareeb. madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayay ka dhawaajeen inuu ku wargeliyay Cabdi Xaanshe inuusan ka qaybgali karin shirka maadaama uusan ka mid ahayn dhinacyada la martiqaaday. shirweyne looga arinsanaya qadiyadaha la isku hayay ee arrimaha doorashooyinka ayay ku baaqeen walow aysan mudeen goobta iyo goorta uu qabsoomay shirkaasi. gudoomiye Cabdi Xaanshe ayaa toddobaadkan wuxuu warqad u diray Qoorqoor isagoo ku wargeliyay inuu ka soo qaybgalayo shirkaasi uu 31 bishii hore iclaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qodobka khuseeya siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee kamid ah arrimaha la isku hayo doorashooyinka wuxuu yahay xulista wakiilada Somaliland ee baarlamaanka oo fila Soomaaliya ay qorsheynaysa inay boobto. shirka wada tashiga ee maanta u furmay madaxda dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa looga hadlay arrinta Somaliland oo kamid ah 3 qodob ee ugu waaweyn ee ka taagan ismariwaaga doorashooyinka dalka. ilo ku dhow kulanka ayaa sheegaya in shirka maanta uu diiradda ahaa arrinta Somaliland iyadoo madaxda dawlad goboleedyada la hadleen gudoomiye Cabdi Xaanshe Cabdullaahi laguna wargeliyay in arrinta Somaliland ay ka soo heshiyaan isaga iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka ayna wixii ay ka soo wada hadlaan u soo gudbiyaan shirka.
inkastoo ajandayaasha shirka dhuusamareeb uu qayb ka yahay arrinta Somaliland haddana ma jiro mas'uul ku matalaya dhinacyada ka soo jeeda Somaliland waana midaas xubnaha uu hogaamiye Cabdi Xaashi inay ku tilmaamaan shirka mid aan loo dhameen madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir ayaa mar kale caawa fiidkii shir labaad isugu yimid iyadoo oo shirka caawa looga hadlayo qodobada kale oo ah kuwa ugu culus ee dooda adag ay ka taagan tahay maanta gudoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa ku baaqay in doorkii ay ku lahaayeen shirka dhuusamareeb la dudsiyay oo ay doonayaan in la ixtiraamo madaxweyne farmaajo oo ku digtay meedka generaal galaal Allah u naxariistay kadib markii uu diiday inuu ka qayb galo salaada janaasada ee marxuumka intaasi kuma uusan ekaan wuxuu ugu daray inuu magaalada dhuusamareeb ka diga asagoo dhoola cadeynaya iyadoo ay tacsi qaran taalo waxa taasi ka sii daran in magaalada uu ku soo dhaweeyay qorqoor oo asagana dhoola cadeyn iyo farxad weyn ay ka muuqato dadku kala gobsan shirkii hore ee dhuusamareeb markii uu geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Abshir Faarax Allah u naxariistay isla markiiba madaxweyne Dani waxa uu orod ku tagay magaalada Garowe si uu aaska marxuumka uga qayb galo balse qorqoor iyo Roble oo ku heeba generaalka geeriyooday ee Galaal aysan labadooda midna u dhaqaaqin kana qayb galin aaskiisa oo ka dhacay meel aan sidaas uga fogeen halkii ay ku caweynayeen farmaajo qorqoor iyo Roble waxa baraha bulshada lagu baahiyay sawir ay wada galeen qorqoor iyo Roble oo ay farxad weyn ka muuqato ayagoona xushmeyn waayay tacsida u taala bulshada ku heebta ah ee reer Galmudug ee uu ka baxay shakhsi aad ugu weynaa sawirkaas ayaa falcelin weyn laga sameeyay ayadoo shacabka reer Galmudug ay dhaleecayn u jeediyeen labada mas'uul ee kala ah Roble iyo qorqoor madaxweynaha Galmudug iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa jiray shakhsiyaad magac ku leh baraha bulshada iyo reer Galmudug ayaa qoraal xanaf leh hawada u mariyay madaxweyne Farmaajo qorqoor iyo Roble shakhsiyaadkaas ayaa waxa kamid ah xildhibaanka mayalka adag ee Mahad Maxamed Salaad asagoona qoraalkiisa ku yiri mudnaantii iyo maamuuskii ahayd in loo sameeyo aaska marxuum generaal Maxamed Nuur Galaal maanta ma helin meel aan ka fogeyn godka xali loo hooyay generaal Galaal shucuurtii madaxda federaalka iyo Galmudug sidaan iyo u taali fiiro gaara sawirada midna waa aaskii generaal Galaal xali looga sameeyay degmada Guriceel midna waa soo dhaweyntii shalay galab looga sameeyay madaxda federaalka magaalada Dhuusamareeb Allah u naxariisto generaal Galaal ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay sidoo kale waxa asagana qoraal xanaf leh soo dhigay bartiisa gaarka ah wariyaha caanka ah ee reer Galmudug Daahir Cabdulle Calasow asagoona qoraalkiisa ku yiri halyeegaada rag baa u yaqaan Mooriyaan geerida generaal Galaal darteeda calanka hoos looma dhigin si loogu baroor diiqo aas qaran looma sameeynin ee jufadiisa ayaa Guriceel ku duugatay qorqor wuxuu roogcas ku soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo iyo madaxdii dawladda sida ra'iisul wasaare Roble laakiin uma dhaqaaqin aaska halyeega qaran waa cadeen muujinaysa inaysan geeridiisa micno badan u lahayn ra'iisul wasaare Roble uma eka wajigiisa mas'uul ay tacsi qaran ama mid qabiil u taalo Farmaajo oo saraakiishii habargidir ee guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kabaha ku duugay waxaa Guriceel ugu duceeyay ugaaska Beeshaceer iyadoona cidna aysan ka weydiinin meydka saraakiisha uu laayay maantana roogcas ayuu dul dhigtay halyeegii uu naga dilay kuligeen aan wada oynay albaabka noo xira generaalka habiye waa Mooriyaan dablaha beelaha kalena waa halyee qaran lax waliba halkay isdhigta ayaa lagu qalaa ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabay wariye Daahir Cabdulle Calasow adigoo wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta